xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay xariga jirka kastamka cusub ee ina guuxa isla markaas xildhibaan qodax ayaa ka sheekiyay muhiimada iyo faa'iidada uu yeelan doono kastamkan cusub ee ka deegaan ahaan isagoo oo sheegay inay ka faa'iideystaan markaasina ka soo baxay boqolkiiba 10 yeelan doonaan isla markaasina lagu maalgelin doono degmada Salaxley waa kan xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax oo ka sheekeynaya taariikhda ballaaran ee leedahay magaalada xuduudada ganacsiga ee ina guuxa walaalayaal maanta waxa noo farxad ah dhamaanteynba inaynu maanta halkan isku nimid oo Ilaahay inagu simay inaynu maanta halkan xadhi ka jarno kastamkii ina guuxa oo runtii deegaankan iyo degmada Salaxleyba in badan ay ku taamaysay oo runtii muhiimad gaarana u leh degmada Salaxley iyo guud ahaanba deegaanka Hargeysa waana Ilaahay mahadi waxaan ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo runtii go'aan wanaagsan oo dhiirasho leh oo uu maanta halkan uu ku soo qaatay iyo runtii in badan oo aanu ku noqnoqonay naga aqbalay inuu maanta halkan xafiiskan quruxda badan leh kastamkan inoo furo walaalayaal ina guuxa waa magaalo taariikh leh oo isku xidha runtii degmada Daroor iyo degmada Salaxley isku xidha kastamkana muhiimad gaar ah ayuu noo leeyahay marka waxa kale oo laga tago wixii ka soo baxa halkan ee soo mara boqolkiiba 10 been ku yeelan doona hadii Allah insha Allah bilaa kari oo degmada Salaxley aan ku horumarin doona hadii Allah yiraahdo guud ahaanteed insha Allah waxaan ka bariyaa Ilaahay inuu ka dhigo kastamkan sida ka wajaale iyo kala beero kale hadii Allah insha Allah oo ay runtii uu noqdo halbowlo dhaqaale oo dalka iyo dadkaba wax soo kordhiya insha Allah Ilaahay